Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta dib u celiyay doorashada laba kursi oo dhowaan lagu doortay magaalada Baydhabo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Labada kursi ayaa kala ah kursiga lambarkiisu yahay Hoob 103 iyo sidoo kale Hoob 154. Kursiga Hoob 154 ayaa waxaa ku soo baxday xildhibaanad Sareede Maxamed Cabdalla ayaa waxaa dood ka timid da'da qofka la tartamayay oo ahayd haweeney. Guddiga doorashooyinka ayaa cadeeyay in gabadha la tartantay Sareede ay aad u yareed isla markaana aysan buuxinin shuruudaha looga baahnaa u tartamaha kursiga Hoob 154. Kursiga kale ee guddiga doorashooyinka heer federaal ay dib u celiyeen ayaa asna ah kursiga Hoob 103 waxaana kursigaasi isu soo sharaxay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. guddigu waxa uu go'aamiyay qodobadan: 1. in kursiga sumadiisu ay tahay Hoob 154 habkii loo maray doorashadiisu aysan waafaqsanayn habraacyadii doorashada, iyadoo murashax ka mid ah kuwii ku tartamay uusan buuxin shuruudii murashaxnimada qodobkiisii saddexaad ee heshiiskii 1 Oktoobar 2020. sidaa darteed natiijada kursigaas oo ka dhacday Baydhabo 29 Noofembar 2021 waa waxba kama jiraan, doorashadiisana dib ayaa loogu noqonayaa. 2. kursiga uu tirsigiisu yahay Hoob 103 iyadoo la tixraacayo go'aanka guddiga ee ku xusan warqadda sumadiisu tahay tixraac guddiga doorashooyinka heer federaal eber 56/22 soona baxday 27 Noofembar 2021. go'aankaas oo lagu hakiyey in la qabto doorashadiisa. sidaa darteed marka habraaca la dhammaystiro ayaa la qabanayaa doorashadiisa.